Okay, waxaa tahay madaxa xisaabaadka gaar ahaan qaybta reportingka. Waxaa la gaaray dhammaadka bisha. Ballantuna ahayd inaad soo gudbido report diyaarsan kana turjumaya bandhig iibeedkii bishii la soo dhaafay. Weliba hab ay saamiilaydu shirkaddu fahmi karaan. Xarumaha kala duwan ee shirkadda ayaa ku soo gaarsiiyey faylasha iibka. Shirkaddu waxay leedahay 9 xarumood, sidaa darteed waxaa ku soo gaaray 9 fayl. Markay timaado taxliilin Microsoft Excel software kaga fudud ama kaga hawl karsan ma jiro maadaama ay diyaar ku yihiin qaacidooyin iyo features kala nooc. Laakiin su'aasha ayaa ah si aan u taxliiliyo daatada waa inay ku diyaarsan tahay hal waraqad ama hal worksheet. Halka daatada ku soo gaartay ay tahay 9 warqadood oo kala duwan. Sideed hal warqad uga dhigi kartaa? Xalka koobaad ee maankaada ku soo dhacaya ayaa ah copy and paste kaas oo ugu yaraan saacada ku qaadanaya haddii aysanba maalin kugu qaadan. Casharkan ayaan ku baran doonaa combine files feature la yiraahdo anagoo isticmaali doona Power Query ama loo yaqaano get and transform data. Power Query waa tool ku dhex dhisan Microsoft Excel mana ahan software kale waxa aad ka heli kartaa taabka daatada ee Microsoft Excel. Laakiin ka hor intaadan bilaabin wax walba waa inaad u hoggaansataa shuruucda Power Query u degsan si daatadeenu ay ahaato mid la aqbali karo. dhowr qodob ayaan kugula wadaagi doonaa maadaama ay ku xiran tahay hadba qaabka ay u dhisan tahay daatadaada. 1. Hubi sinaanta xogtaada ama daatadaada. 2. Xogta ama daatada waa inay leedahay ciwaan. 3. Daatadaada ka ilaali subtotals gaar ahaan bartamaha daatada. 4. Xogta ama daatadaada waa inay ahaataa Excel official table. 5. Daatadaada waa inay ku diyaarsan tahay hal folder. 6. Hubi habuuxinta cellska tusaale ahaan column loogu talagalay taariikh ama date ay qoraal ku qoran yahay ama qoraal lagu qoray. Maadaama aan mugdigii iftiiminay aan u guda galno casharka isla socod wanaagsan.